إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsid tiiraaya lagu diraynaa dadkii xalay lagu laayay oo si wadar ah loogu laayay magaalada Gaalkacyo waxaan tacsidaas u diraynaa annagoo ah aqalka sare dhammaan maamulka waxgaradka dowlad goboleedka jub muxuu ahaa koonfur galbeed waxaan leenahay tacsid tiiraanyo leh baan idin soo diraynaa annagoo idin leh ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen hoos ahaan sabir iimaan allah ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna tacsidaas waa u diraynaa maxaa yeelay waa fal xun oo aan weli ka dhicin Soomaaliya maxaa yeelay ummad aan waxba galabsan in la iska laayo sax ma ahan Soomaalinimadana kuma jirto muslimnimadana kuma jirto marka tacsidaas ummadda reer koonfur galbeed meel kastoo joogaan baan tacsidaas u diraynaa gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka soo jeedeen dadkaas masaakiinta oo la laayay dowlad goboleedka galmudug mas'uuliyiinta galmudug waxgaradka galmudug oqaasha galmudug iyo dhammaan intii wax Soomaalinimo iyo islaamnimo ku jirto galmudug waxaan ugu baaqaynaa dadkii dambiilayaasha ahaa ee falkaas sameeyay in ay gacanta ku soo dhigaan oo ay shariicada hor keenaan maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa akhyaar waxay safoofsan baa u soo hoodo ma aha galmudug oo dhan inay muxuu ahaa hawshaas ka taliyeen ma aha galmudug oo dhan mataqaanaa hawshaas inay ka wada qayb qaateen ma ahan niman ardaal ah oo yaa falkaas sameeyay looma nisbeen karo marka galmudug looma nisbeen kare dad xun baa loo nisbeenayaa dadkii sameeyay dad xun bay ahaayeen aad iyo aad dadka reer galmudug waxaan ugu baaqaynaa inay gacanta ku soo dhigaan oo la hor keeno maxaa la yiraahdaa maxkamad la hor keeno ama shariicada la hor keeno reer koonfur galbeed waxaan ugu baaqaynaa in ay isdejiyaan oo aysan u nisbeynin wax loo wada geystay inuu nisbeynin wax muxuu ahaa fool xun oo ardaal ay sameeyeen inuu nisbeeyaan mas'uuliyiinta reer galmudugna ilaa xalay ilaa maanta baaqay dirahayeen arkaynay aad bay u tiiraansan yihiin annaguna waa la tiiraansannahay insha Allah reer galmudugna waa inay hawsha wax ka qabtaan reer koonfur galbeed waa inay isdejiyaan maxaa yeelay dadku waxa ku dhex jira shaydaan barbarxiir la yiraahdo barbarxiirku muxuu sameeyaa wuu isu dhex marayaa nimanka al-shabaabka laftirkooda isu dhex maraya dadkii kan la dilahayo kuwana ku dhex dhuumanayo marka Soomaalida wax arrintaas ka digtoonaata la rabaa oo ay u ogaato waxaan wax isu dhex marayeen nimanka al-shabaabka aha dadka la leenahay ma al-shabaabka ma ahan dad wax muxuu ahaa wax geystay ma ahan waa dad masaakiin ah kii laayay murdadka aha oo ay darna waa fakaday dad masaakiin la laayay marka baaqanagu wuxuu ku saabsan yahay tacsidaas aan dirayno koow oo aan u diray dadka ehelada ahaa ee ka soo jeeday reer koonfur galbeed iyo baaq aan u diray reer galmudug dhammaantood oo aan leenahay galmudug falkaas adinka baad sameeyeen ardaalada sameeyay hala soo qabto